بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا رجل هانتي بوحدكم سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي هذا حسن عبد الله عمر كارتيه. وحنا أخينا يا كومينيكيجي يور صحافات كصوبحي شركة أفرط مع موت سعودي بيروين تكومره أي كوبر فرير يدراسليه حكتي أو رسم أيام هذا أخينا يا وحقلاش إذا تاجن اسمه كومره أو نم بقلاش إذا تاجن ومخاطيكا سرادين تكومره كومينيكيجن إيه شوغان أيه مخاطي فروطة كومره Council of Elders Meeting شركة ولا تشجع من هذا بيروين تكومره شبلان Soomaaliya warmurtiye sagaalka luuliyo sanadka 2019 Kismaayo Soomaaliya waxaa magaalada Kismaayo caasimada ku-meelgaarka ee Jubbaland ka dhacay shirweyne ay ku yeesheen beelweynta kuumade oo ku kala nool daafaha caalamka shirkaasoo bilowday 6 bishii 7 ee sanadka 2019 wuxuu socday ilaa iyo 9 bisha 7 ee 2019 kasoo qaybgalayaasha oo kor u dhaafay 700 waxay ka kala yimaadeen USA, UK, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, Belgium, Holland, Imaaraadka, Sacuudiga, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Kenya, Ethiopia iyo dalka gudihiisa shirka waxaa kaloo ka soo qaybgalay ururada bulshada oo ay hormuud ka yihiin duubabka iyo hogaamada beelaha kuumada ee ku nool dowlad goboleedka Jubbaland waxayna ka mid ahaayeen ka qaybgalayaasha shirka culimaawidiinka aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiinta sare ee dowladda shirkan wuxuu ahaa mid ka madax bannaan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya shirka waxaa kaloo ka soo qaybgalay xubnaha golaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xubnaha wasiirada dowladda federaalka ee beesha xildhibaanada beesha ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubnaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ee beesha xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee beesha kuumade iyo mas-uuliyiin badan oo beesha ka tirsan shirkan oo socday muddo 4 beri ah wuxuu ku qabsoomay jawi deganaan iyo is-afgarada waxaa lagu falanqeeyay arrimo badan oo taabanaya maslaxada iyo nolosha shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka reer Jubbaland waxaa si qoto dheer looga warbixiyay arrimaha soo socda oo dood dheer laga yeeshay mawduucayaasha shirkan lagu lafaguray waxaa ka mid ahaa 1 arrimaha nabadgelyada 2 arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka 3 arrimaha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha 4 barakacayaasha iyo siyaasadda dib-u-dejinta 5 siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan dowlad goboleedka Jubbaland 6 arrimaha doorashooyinka iyo doorka oday dhaqameedyada 7 adkeynta midnimada beelweynta kuumade warbixino xog isweydaarsi dood gurub qoto dheer kadib waxaa la isla garwaaqsaday in dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay gacan bidixayn iyo faragelin xoogan oo qaawan ku hayso maamulka Jubbaland dowladda uu madaxda ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka duudsisay maamul goboleedka Jubbaland wax allaale iyo wixii xuquuq ahaa ee ay ku lahaayeen dowladda dhexe maamul goboleedka Jubbaland wax mas'uuliyad ah oo ay ka hayso hogaaminada ciidamada qalabka sida ma jirto sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nabad sugidda daraawiishta booliska iyo asluubta safiiradii qunsuladii
howlwadeenadii ka ahaa safaaradaha dibadda waa la soo xareeyey. wasiiradii ay xaqa u lahaayeen beeshan waa la dhimay. qaarkoodna mas-uuliyiintii ka shaqaynaysay ayaa shirqool dembi loo sameeyey, kadibna inta maxkamad la taagay dembi lagu waayey. booskii wasiiradaasi oo laba ah weli wuu bannaan yahay. falanqayn iyo gorfayn iyo xog isweydaarsi dheer kadib waxaa la isku waafaqay: kow, in la xoreeyo deegaanada weli ku jira gacanta nabadiidka. labo, in nidaamka iyo manhajka waxbarashada dalka dib loo eego, lana qorsheeyo sidii loo gaari lahaa waxbarasho khasaba oo lacag la-aana, iyo in la yegleelo caafimaad aasaasi ah oo dadweynuhu lacag la-aan ku helaan. saddex, in dhaqaalaha iyo kaabayaalkiisa kor loo qaado. afar, in beesha kuumade ay midowdo islamarkaana ay beelaha soomaaliyeed ee walaalahooda ee reer jubbaland ay nabad kula noolaadaan. shan, inay ilaaliyaan midnimada iyo kala dambaynta iyo dowladnimada ee dhammaan deegaanada ay ku nool yihiin sida Kismaayo, Gaarisa iyo Jigjiga. lix, inay beeshu samaysato golo waxgarad oo marjac ah oo maareeya wixii dhibaato ah ee la soo darsa deegaanada saddex geeska ah ee beeshu degto. xubnaha golaha marjaca waxaa lagu dhawaaqi doonaa intuusan shirku dhammaanin. toddobo, inay u guntadaan midnimada iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed. sideed, in la caddeeyo islamarkaana laga salgaaro maqaamka caasimadda iyo mudnaanta gobolka Banaadir. sagaal, qarannimada Soomaaliyeed waxay leedahay 3 tiir oo lama taabtaan. haddaba beeshani waxay garwaaqsatay in dalkii Soomaaliyeed maanta duulaan lagu yahay oo lagu xadgudbay dhulkii, dadkii iyo dastuurkiiba. in madaxda ugu sarraysa ee qaranka Soomaaliyeed bixisay deegaano ama dhul qaran iyadoo milkiilayaashii ama lexejeclayaashii mas-uulka ka ahaa aan lala tashan sida baarlamaanka. b, in muwaadin Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ahaa loo dhiibay cadow lana dafiray. c, in jabhadda xaquudirirka ee ONLF ay qoreen argagixiso ilaa iyo haddana aysan raaligelin ka bixin. d, in dastuurka dalka lagu tuntay iyadoo awooddii xeerdejinta ee baarlamaanka laga tallaabsaday doorashooyinkii, qaybsigii khayraadka dalka iyo dhammaan wixii ummadda u dhexeeyey. in go-aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka 6dii bisha 7 ee sanadkan 2019 uu ahaa mid baadil ah oo ka hor imaanaya dastuurka dalka, islamarka ahaantaana abuuraya xasarad iyo amni xumo. 10, maadaama lagu jiro xilli doorasho waxay beesha kuumada isku raaceen iskuna waafaqeen in hal qof uu matalo tartanka doorashada madaxweyne, kaasoo loo gartay inuu noqday Axmed Maxamed Islaam. kow iyo 10, waxaan ugu mahadcelinaynaa dowlad goboleedyada ka dhiidiyey xadgudubka dowladda dhexe ku samaynaysa Jubbaland, gaar ahaan walaalaheena Puntland. 12, sidoo kale waxaan mahad gaar ah u soo jeedinaynaa guddiga qabanqaabada shirka. baaqi iyo digniin. kow, beelweynta kuumada waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan waxgaradka iyo odayaal dhaqameedyada ugu baaqaysaa inaysan ka aamusin mugdiga iyo rajaxumada soo wajahday dalka, taasoo keeni karta in qarannimadii Soomaaliyeed ay ku dhacdo bohol dheer. 2, beesha kuumada waxay uga digaysaa madaxda dowladda federaalka ugu sarraysa inaysan dalka u horseedin dagaal sokeeye inuu kala go'o. 3, beesha kuumada waxay soo jeedinaysaa in si daacad ah
وذا حاجوب ولفر الصومالي لان أفر بيش كما ذا وحيد بيش عالم كعوبة بيسائل السيدة وصعته حمناها سيدة طوسكا أقول له سيدي حسنون لده إيا نرد كتشت تشبنا الله عرضين لها شان بيش وحيوبة بيسائل دولة فدراك إني احترامته دستورك كوميلجا في دولة فدراك الصوماليين سيدة قضباء بقول أفرطن إيا الله إيا بقول إيا الله بيش waxay si buuxda u taageeraysaa xeerka iyo hanaanka doorashooyinka Jubbaland uu u ansixiyay baarlamaanka Jubbaland. Toddobo beeshu waxay cadeynaysaa in cawaaqib xumada ka dhalatay faragelinta